السلام عليكم بسم الله الحمد لله ومركلة كانال كينا تيوريجا إن شاء الله مدة كدب ما أنت وحن شرحي دونا بورك لو يقانو أما علامة لو يقانو إن ريختين إسفاقة هي فربليكت راي ريختين halka aan ka aragno boorka dhanka bidix yaal oo afar geeska ah waxaa loo yaqaanaa inrichtingsweg macnaha inrichtingsweg waxa weeyaan waa wado oo in aad u gasho dhankan aad ka gasho toos aad u socoto haddii lacala wada dhanka midig ee kaaga timaado ama dhanka bidixna aad u laabato insha allah waayo su-aalahan in badan waa lagu dhib qabaa oo aadna yani mar walba laga yaabo in imtixaanka oo rasmiga ah aad ku aragto insha Allah taala inrichtingsweg macnihiisu waxa weeyaan inaad inta ku wada gaari waa lagu ogol yahay laakiin gaadiid ama mooto baskiil gaari inay ka hor imaadaan waa maya kama hor imaan karaan haddii lacala adiga wada kaaga soo baxda dhanka midig waa wad u laaban kartaa dhanka bidix waad u leexan kartaa midka xiga waana afar gees boorkan midka xiga waa boorarka loo yaqaano verplicht rijrichting hadduu la hidmo kuwa waa wareeg adiga waxaa lagugu amray ma lagugu qasbay inaad dhanka midig u leexato waa amar lagu siinayo laakiin dhanka bidix dhanka midig dhanka hore yani dhinac walbo waad ka filaysaa gaadiid inay kaaga imaadaan soo haddii su-aal lagu weydiiyo su-aalaha noo soo socda insha Allah tacaala oo aan isku dayi doono inaan sharaxo waxaa lagaa rabaa mar walba inaad eegto midka inrichtingska ah oo dhanka falaarta ee ku dirtay aan lagaaga imaan karin haddii su-aasha xigta aan u gudubno waa kan waxaa lagu leeyahay su-aalaha in badan ku imaan kara waxa waaye by welke splitting kuntu bestuurders van links verwachten waa su-aal by welke splitting kuntu bestuurders van links verwachten waa hal wado ama hal sawir oo lagu dhigay labadan boorood midka inrichtingska ah oo hadda waqti xaadirkan inaad dhanka bidix u leexataa ku khasban tahay iyo midka ah verplicht rijrichting oo dhanka bidix iyo dhanka midig kaliya lagu amray inaad u leexan karto su-aasha waxaa la yidhi adoo taagan kasoo qabo bilmathalan in aad taagan tahay waa wadada oo boorka dhanka bidix yaal oo loo yaqaano inrichtingsweg inaad taagan tahay aadna su-aashan lagu weydiiyey wadadan dhanka bidix gaadiid ama baabuur inay kaaga imaadaan ma ka filaysaa su-aasha waa maya because falaarta meeshay ku dirtay weeyaan boorkana waa afar gees su-aasha waa maya kan oo aaga ah dhanka bidix lagama imaan karo laakiin midka beyga ah waa boor wareegan adiga lagu amray ama midig ama bidix u leexo toos waa laga mamnuucay dus hadda boorkee ama qaybtee dhanka bidix ka filaysaa darawalin inay kaaga imaadaan waa bay waa splitting bay kaliya boorka ba'da ah ama bayda ah unbaad ka filaysaa inaad dhanka bidix dhanka hore dhanka midig kaaga imaado laakiin midkan afar geeska ah dhankay falaarta ku dirtay cid kaaga iman karta ma jirto laakiin dhankay kaa dirtay falaarta waa ha su-aal kale hadduu la hidmo waa tan boorkan asna jaalaha ah waxaa loo yaqaanaa omlighting hadduu la hidmo omlighting ayaa loo yaqaanaa so by welke splitting qaybtee ama waa boorkee mutu ayaa ku khasban tahay bestuurders darawaliin van links verwachten inay dhanka bidix darawaliin kaaga imaadaan boorka inrichtingska ah
markan waxaa loo tilmaamay dhanka midig soo marka a hadda dhanka midig cidna kaagama imaan karto laakiin dhanka bidix su-aasha waxay leedahay dhanka bidix waa lagaaga imaan karaa boorka jaalaha oo asan loo yaqaano omlightingka dhanka ay ku dirtay fallaarta ama dhanka ay kaa dirtayba waa lagaaga imaan karaa maxaa yeelay boorkan waa omlighting oo keliya oo hagid un macnaha adiga lagu hagay oo haddii wadda ay dhismo ku socotay oo kaleete lagu soo hagay haddaad rabto magaalo hebel halkaa ka bax laakiin kuma khasbanid inaad u leexato dhanka midig haddana kuma khasbanid in aysan dad kaaga imaanin dhankii fallaarta ku dirtay soo marka asna sidoo kale midig iyo bidixba waad ka filaysaa gaadiid inay kaaga imaadaan so a iyo b labadaba by bidas policing labada qeyboodba waad ka filaysaa inay kaaga imaadaan waa darawaliin ama gaadiid su-aasha ugu dambeysa insha allah waa tan su-aashan asne labada booroodba waxa weeyaan verplicht rijrichting waa laba boor isku mid ah oo ah in adiga lagu amray inaad u socoto dhankaas kaliya su-aasha waxaa la yidhi by welkes policing motobistu das vanlis verruchten boorkee ka filaysaa dhanka bidix inay darawaliin kaaga yimaadaan labadaba waa wareeg waa rond adaa lagu amray tan aada in adig u leexato dhanka midig ama toos un aad aado midka kale toos un inaad aado lagu amray laakiin dhan walbo darawaliin inay kaaga imaadaan waad ka filaysaa soo kanna waa sidoo kale splitsin a and b ayuu noqonayaa midda sida ayagoo sawiraan ah oo hataa ay ku jirto dhanka midig insha allah ayaan soo saari doonaa ama videoga xiga ama xajirka xiga kusoo sharax doona hadduu ilaahay idmo waan idin salaamayaa dhammaan kusoo dhawaadana channelka insha allah tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu